بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين معلم البشرية جمعاء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مدحدا ugu horeeyo madaxweynaha boorka maanta munaasabadu waa munaasabad jaamacadeed. borotokoolka waxaa iskale jaamacadda iyo ardadeeda, madaxda xildhibaanada iyo wasiiradu raalli ahaadaan. madaxweynaha boorka, xubnaha boorka, macallimiinta, ardada qalin jibinaysa, waalidiintooda iyo saaxiibadood, barofesoorada waaweyn oo meesha fadhiya oo ugu horeeyo macallinkii macallimiinta beledkan professor ama admiral faarax qare iyo kuwa kale oo fara badan, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. marka hore ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad leh. maalintan boqoran farxadda iyo sharafta cilmiga qiimaha weyn runtii ay ku xardheen qalinjibiyaasha jaamacadda Capital oo aan maanta u joogno dufcadeedii 9aad. runtii waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. aad iyo aadaan marka hore ilaahay uga mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala. asaga ayaa iska leh fadliga iyo runtii waafajinta iyo muddada dheer oo la soo socday inay guul ku soo dhamaato. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa iska leh, asaga ayaan u mahad celinaynaa. waxaan u mahad celinaynaa waalidiintii runtii soo kifaaxay, soo garab istaagay, dadaalka dheer ku bixiyey ardadaani inay maanta meeshaan soo gaaraan, taariikhdan ifaysana maanta ay runtii dhigaan, ayaga oo runtii soo afjaray marxalad aad iyo aad muhiim u ah oo markii laga hadlaayo yacni geedi socodka aqoonta meel runtii aad iyo aad muhiim u ah ee runtii soo gaarsiiyey. waxaa sidoo kale mahadsan maamulka, macallimiinta iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay. sida la ogyahay cilmi markii laga hadlaayo adduunyo asay ku dhan tahay. markii cilmi laga hadlaayo iyo aqoon meeshaas adduunyadu halkaasay ku dhan tahay. nabiga calayhi salaatu wasalaam hal xadiid waxaa kaaga filan qofkii adduunyo raba ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fa calayhi bilcilm, cilmiga ha barto. qofkii aakhiro rabana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo khayrkeeda iyo jannadeeda wuxuu yidhi fa calayhi bilcilm. qofkii labadooda isku rabana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa calayhi bilcilm. marka meeshaasay ku dhan tahay. aqoon ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhisay koonkan. ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga ayaa dadka markii ugu horreysay ku bilaabay muslimiinta ah iyo dhammaan bashariyada dhammaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisii uu u soo dejiyey oo ku bilaabay iqra bismi rabbika alladii khalaq. halkaas ayay ka muuqataa ahmiyadda waxbarashada, halkaas ayay ka muuqataa qiimaha cilmiga, halkaas ayuu ka muuqdaa waxa uu mudnaan u leeyahay mujtamac Soomaaliyeed iyo dhammaan mujtamacaadka muslimiinta aqoontu qiimaha ay u leedahay. waxaan rabaa marka inaan runtii mar kale hambaliyeeyo ballan la galay oo guulaysatay, heshiis iyo caqdi la galay oo guul ku soo dhammaaday. markii la bilaabayay marxaladdan waxaa heshiis galay maamulka, waalidka, macallimiinta iyo ardada ayaa heshiis galay inay bilaabaan marxaladdan. marxaladdii heshiiskii lagu galay maanta guusheedii ayaa la taagan yahay. marka waa heshiis guulaystay, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu guuleeyey. guushaasna waxaa dhigay ardadii sabartay, dulqaadatay, wakhtiga adag runtii maaragtay u soo martay inay maanta oo kale ay taariikhdan dhigaan. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. waa idin hambaliyaynaynaa, waa idin bogaadinaynaa, waa idinku faanaynaa, waa idinku farxaynaa. waxaana idinka rajaynaynaa inaad horay u soo socotaan. meesha aad soo gaarteen meeshii ay ku soo dhammaahaysa ma aha, laakiin waa meel muhiim u ah geedi socodka waxbarashada. laakiin dariiqu waa dheer yahay sida la sheegay. marxalado kala hortiina maaragtay yaala
وأنا حقي جسين هذا إن تقولي سكرتين دكسي هو صدق حسرات كسو بحدين ما أنت أنا جامعات كسو قلنا جبسين وحاموقة تمرك إن أود الذين إن هرقوا صيد قاعدين قول بدن حقي جسين هو جامسين دتكينا يدلكينا إذن كأو هو hub maaya dhashiike iyo maaha aqoon idinkoo ku habaysan inaad dadkiina dalkiina hogaamisiin waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii cilmi baarista qiimaha badan oo runtii ay soo kordhiyeen ardadeena ee gaar ahaan jaamacadda capital qaybaheeda kala duwan cilmi baaristu qiimaha ay leedahay wax weyn waaye cilmi baaristu waa tan suurto gelisa inuu bini aadamku fahmo waaqica uu ku nool yahay waa tan suurto gelisa in la xalliyo caqabaadka iyo mashaakilka jira waa tan suurto gelisa insaanku inuu fakero oo ku tallaabsado horumar haddaan wax la baarin oon cilmi baaris jirin oon aqoonta la shiilin oon sida ardadaas gabdhaha iyo wiilashu ay aqoonta u shiileen maskaxdooda wax soo kordhaya ma jiraan meeshaasaa la iska fadhinayaa taasna waa hambalyaynaya waa bogaadinayaa waa aqoon soo korortay waddada maalin kasta oo waxbarashada lagu socdana wax kala soo kordhaya waddada cilmiga waddada aqoontu waa guulo waa horumar waa bulshada in la dhiso annaga dadkeena iyo dalkeena Soomaali markaan nahay cadow badan aan ugu hareeraysan cadow gudaha cadow dibadda cadow annaga nafteena aan isku hayno waxaa looga gudbi karaa aqoonta waxaan rabaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto ardadaas runtii dadaalkaas muujinaysa maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta isku duuban ee dhisaya mustaqbalka ardada Soomaaliyeed waxaa soo baxaya kooxo ka shaqeynaya in ardadii Soomaaliyeed wada khaldan la mariyo oo magafayaal loo dhiibo oo ay ka soo qaylinayaan qaarkood hadda ayaga oo arxan laawayaal magafayaala ay maaragtay yaani meel ku haystaan waxaas ka shaqeynaya damiir laawayaal dad runtii Soomaaliyeed oo damiir laawayaal ah ayaa maanta waxay fududeynayaan in arday Soomaaliyeed oo meel la soo gaarsiiyay oo noloshiisii la soo dhisay iyo mustaqbalkiisii in inta been loo sheego la yiraahdo waa lagu tahriibinayaa ayadoo laga faa'iideysanayo diyaaradaha Afrika sida Egypt Air iyo Ethiopian Airways oo hadda maaragtay fiisooyinkooda aad loo helo waxaan rabaa inaan ka digno dadka Soomaaliyeed in laga daayo marin habaabinta waxaan rabnaa inaan cod dheer ugu sheegno dadka arrimahaas ku howlan inay faraha kala baxaan marin habaabinta mustaqbalka jiilasha Soomaaliyeed safiirkii Liibiya u fadhiyay Soomaaliya daraad la hadlaayay waxa uu ka sheegayo dhibaato iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada meesha ku haysata iyo dhalinyaro Soomaaliyeed wax la dhigaysan kara maaha yaa sameeyay dadkayna sameeyay haddaan mas'uuliyiinta lala xisaabtamin oo aan immigration kala xisaabtamin oo aan hay'adaha amniga lala xisaabtamin oo dadka mataarka mas'uulka ka ah airportka aan lala xisaabtamin waxaas waa soconayaan waxaan rabnaa marka inaan cod dheer ku dhahno hal la joojiyo tahriibinta dhalinyarada hal la joojiyo tahriibinta dhalinyarada hal la joojiyo marin habaabinta dhalinyarada hal la joojiyo ka ganacsiga in mustaqbalka la baabiyo hal la joojiyo cod dheer ayaan ku leenahay xukuumaddana waxaan ugu baaqaynaa inay la xisaabtanto hay'adaha mas'uulka ka ah inay la xisaabtanto hay'adaha duulista inay la xisaabtanto hay'adaha مسؤول كا جرامدا إن إلا حساب تنتو عيدا ماذا أمني مسؤول كا جرامدا إن إلا حساب تنتو هي أداها كشقية تكيدا ذا يفيزون كسو سارستو ذا إن له بيو دتك لقى تجاري سنايو قرني كو إلا باترات وتجاري سنوع كلاوي أو هذه هذا فرحون كل جين وقتين قيس عن دباتها سو جاري ويري هاي عن ديدنو عن كهرتجنو إن لقى جناعسده لقى تجاريستو لإيبسدو مانتا أرددهني أيضا جامعة هني أي أتاجيهين معلمين تاني أتاجيهين والدين تاني أتاجيهين سمتبحين تودا لسد مستقبل كودا شرفت تودا كرامة تودا إن كوح دمار الدلالية أو توجا أو ديجي عبا أي إيبسدان أنتي باسبور رؤوس ميان إن أي أرددهني سوق كويبيان أو مزاج علني لوجا إيبيو دد ليبيان هذه ما ستين تاسوا ديدينا مر لبعضان لنا همبليو جامعة كابيتالية مدحدة أرض والدين تا يقلن جبياش دمانتين همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلبان محمد